Qof waliba oo noole ah waxa uu ku aftirsadaa waddani si uu u noqdo haldoor taariikhda u gala waddanka. Tani waa gabar Soomaaliyeed, magaceeduna waa Ramlo Saciid Axmed Cali. Ramlo Cali waa mid ka mid ah 5 ciyaaryahan oo aad looga daawado Olombikada sida loogu qoray warbixin ay qorayso Gracia Daily. 31 jirtan ayaa ka soo carartay dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya, waxayna qaab qaxooti ku gashay cariga UK ee dalka Britain. Ramlo Cali qoyskeeda ayaa ku waayay dagaalkii sokeeye walaalkeed oo 12 jir markaa ahaa. Waxaa xusid mudan in uu ahaa aabaheed imaam. Waxaa muhiim ah haddii aad fursad u hesho in aad difaacdo calanka waddankaaga hooyo adigoo kaashanaya aqoontaada, caqligaaga, xoogaaga ama xirfadda aad leedahay. Waana waajib saaran qof waliba. Tani waa sheeko taabanaysa gabar Soomaaliyeed taasi oo taariikhda u samaysay dalkeena kana yaabsatay caalamka oo dhan. Ramlo Cali horey waxa ay u noqotay feeryahankii ugu horeeyay ee taariikhda Soomaaliya ku matala tartan haweeneedka adduunka kaas oo lagu qabtay magaalada New Delhi ee dalka India bishii Janaayo 2018. Ramlo Cali markii ay bilaabaysay feerka da'deedu waxa ay ahayd 12 sano. Si ay u lumiso miisaanka jirkeeda, u hesho kalsooni badan oo nafteeda ah, isla markaana ay u dareento awood. Taariikh ahaan waxay ahayd gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ee iska xaadiriso ciyaaraha Olombikada dhinaca feerka. Mar ay Ramlo ka hadlaysay qaabkii ay ku bilaawday feerka, faamiligeeda ugu horeyn ma aysan ogolaan, waayo way ogeyd markii haddii ay kala hadasho in ay ka qayb galayso in la oranayo barnaamijkan adiga kuma habboonid, waayo adiga gabar ayaa tahay. Sidaa awgeed Ramlo faamiligeeda in ay ka qariso ayay ku qasbanaatay. Sidii ay mar waliba u baxaysay qof aadayo orod isaga dhigaysana way ku guuleysatay. Ramlona saygeeda waa macalinkeeda oo boxing-ka barayo. Macallimiinteeda iyo taageerayaasheeda ayaa qabay kalsooni ah in ay Ramlo ku guuleysanayso tartamada qaar, waayo waxaa la siiyay tababar weyn wayna ku guuleysatay. Dad badan ayayna hore uga soo guuleysatay Ramlo Cali. Ramlo Cali ayaa waxay sheegtay in ay u tahay farxad inay ka qayb gasho ciyaaraha Olombikada qaybta feerka, waliba gabadhii ugu horeysay ee Soomaali in ayada tahay. Waxay tiri mar ay hadlaysay, waxay ii tahay farxad in aan ka qayb galo ciyaartan, waayo taasi hooyaday ayay farxad gelinaysaa, qarankeygina kor ayaan ugu qaadayaa, calankeygina waan muujinayaa. Ramlo maadaama ay tahay gabar awood badan ee ku guuleysatay tartamo badan oo ay gashay, waxaa loo soo bandhigay ciyaar oo loogu soo bandhigay lacag, waliba si ay u qaadato calanka Ingiriiska iyadoo matalaysa dalka Ingiriiska in ay u ciyaarto. Taasina way diiday, waxay tiri calankeyga ayaan qaaday. Run ahaantii geesiyadan waa mid ku dayasho mudan. Waxay diiday in ay calan shisheeye ay ku ciyaarto ayna kor u qaado, waxayna doorbiday inay calankeeda ku ciyaarto, calankeedana ay kor ka dhigto. Geesiyadan mar waliba waxaan u rajaynaynaa guul. Videoga haddaad ka heshay like